xumada kuwii xumaa ee dhaqan xumada iska dhaaf inay sameeyaan ducaada ku aha ducaad kuwa ku baaqa oo ololaha weyn u galay qaanuunka Mareykanka laga soo saaray oo ah inuu ninkuna nin guursado gabadhuna ay gabadh guursato ayaa wadankeena lagu soo dhaweeyay markaas cirka la geeyay oo amaanta loo kiilay oo isaga naf la biday oo la yiri bal adduunyada noo sheeg i'tiraaf aanu helle ya subhanallah wa arda an-nas wa dadka ku u liitay xayawaanaadku waxay garteen xataa garan waayay xayawaanaadka lab wata ama dhadig wata ma aragno sidii ilaahay fidrada ilaahay ku abuuray ku socdaan hatta nolosha xayawaanka kii hoos uga daadegay ayaan inagu sharfaynaa inuu qiimeynayna oo kamida kuwa ilaahay wari inhum illa kalan'am bal hum adallu sabila wallahi la nakhafu fillahi lawmata la'im la nakhafu kafiran wala musliman naqulu alhaqq walau kana murra sidoo yahay baan u sheegaynaa xaq waaba qaraadadabe umadana xumaanta waa uga digaynaa markaas inta caruurteena loo geeyay habliyo inamo ay isla sawireen yaa la isla sawiraa marka dhaqankii iyo dabciga iyo caadada bani aadamka la eego qof loo arkay inuu yahay qof sharaf leh oo qiimo leh oo la rabo xusuus in laga haro Soomaa kaasa maanta meel walba mawaaqicda oo dhan waxa ku faafsan hableeni yaryara iyo inamadeenni yaryara oo sharaf ku doonaya inay ka garabka saaraan oo ka waxa weeyaan ay isla sawiraan markaas inaguna aynu wax fiican oo aragnaa oo haday noqoto meelaha wax lagu qoriyo haday noqoto warbaahinta amaanun baa looga kiilay ma joogin anigu wadanka laakiin si dhabayaan ula socday xaqaayiqda noocaasi ah waxaan sheegayaa ma aha war qof soo gaarsiiyay waxaan anigu akhriyay oo indhahayga aan ku arkay oo xaqiiqadiisa iyo guntiisa aan ogaaday weeyay taasi wax kale calaamadu ma aha waxay calaamadu tahay غير darrada inaan xumaan ba looga baahayn ubadkii oo ka noocaasa in caruurta laga ilaashado bay ahay habla iska daayeen inamada laga ilaaliyo Soomaa oo laga fogeeyo maadaama mabdiisuba nooca uu yahay arrinka toddobaad wuxuu yahay kashfu ducaati radiila kuwa ku baaqaya dhaqan xumada ama gaalaha noqdaan ama islaam haday doonayaan ha ku abtirsadaane arrinkooda waa indaaha laga qaado maanta waxbay qorayaan oo diinteennii bay la dagaalamayaan iyagoo af Soomaali wax ku qoraya maalmo yar ka hor baan akhrinayay mid Soomaaliya ولا نبي محمد انت اسو مقال كسو دغه نبي محمد انت ان لو وحيان كهور مشرك بوها اسنامته لا عابده تلكي waxa looga jeedaa hadalka noocaasna qof waliba uu fahmi karaa sidii islaamku dambiyada qaar uu la dagaalamay sida gacan goynta iyo waxa maanta isbedel baa dhacay waa in laga guuro si kala loo maareyn karaa Soomaali ninka sidaa leh quraanku ma wadama وعائشة واحد في سورة الأحزاب انت امانت هاي تايات بوغا بدنان جرتي يعني صحابة القرآن كي قيبك كميدة الدادية حديث واحد لأنا ما بتشي ربا أما بخاري هكو قرادة أما مسلمة دينتي انتهي لأقبال للدمية مركل الحديث بما تشيرو وهكذا كوا كلنا واد مغليسة دادك نوع عاس وين داها لقا قاضة دادك في صومالي وحكو قوري كرا ay muujiyaan aragtiyaha noocaas ee diinta lagu la dagaalamayo iyo falxumada ay xambaarsan yihiin dadka ducaad iyo culimaduna waa inay ka hadlaan waa dacwad ummadan ku socotee way laga hortago oo laga difaaco ilaahay baa subhanahu wa ta'ala yiri wallahu yuriidu an yatuuba alaykum ilaahay tawbad buu idin ku baaqaya xumaanta ka soo noqotaan wanaaga u soo noqotaan wa yuriidu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima kuwa shahwadooda raaci doonista naftooda uun qaanuun xidhaabaanu jirin waxay doonayaan xagga xumaanta u leexdeen idinkuna inaad ula leexataan wanaag idin la dooni maayaan waa keedi mujaahid markuu fasiraya aayada yuriiduuna an yazni ahlu lislaam kama yaznuun waa halkii ugu darayd buu ka soo qabtay akhlaaq xumada
waxay doonayaan ahlul islaamku zina iyo foolxumo inay sameeyaan sida iyaguba u sameeyaan marka ilaahay kuwa waa idinka digayaa innagana waxa waajib inagu ah inaynu ka digtoonaano muslimiintana aynu uga digno allahumma